Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ardayda iyo dadka kale markaa ku xidhan baa channelkeena waxaad ku soo dhawaataan maanta muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub maanta wuxuu ka hadlayaa wax lagu magacaabo premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome waa xanuun ku dhaca dumarka ku dhaca xilliga aanay helin menstruationka ama periodka ama caadada xilliga aanay helin hadda saa u taqaano markaas ayuu yimaadaa. Marka xanuunkani waa calaamado iswatoon oo markaa gabadhii ku imaanaya marka qaar mayl buu noqdaa mar moderate buu noqdaa marna safiir ayuu noqdaa. Haddaba xanuunkan qeexitaan ahaan waxaa la yidhahdaa waa xanuun qofka ay ku dhacayso physical ahaan iyo emotional ahaan symptom calaamado marka physical oo muuqda iyo mid marka aan muuqan oo emotional oo dareenkeeda ayaa ku imaanaya. Calaamadahan goormay bilowmaan? Calaamadahan waxay bilowmaan hal isbuuc iyo 2 isbuuc ka hor intaanu periodku bilaabin. Waxaa kaloo ay bilowmaan 2 cisho ka horeeya intaanay gabadhii caadadii aanay helin. Calaamadahan way isku arkaysaa. Badi calaamadahan haddaba saan idiin sheegayba mararka qaar waxay noqdaan mayl kuwo markaas iska fudud oo gabadhii ay iskala noolaan karto. Midna waxay noqotaa mararka qaar waxay noqdaan safiir oo kuwo markaa aad u daran bay noqon karaan. Calaamadahan horta sida caadiga lama oga waxa sababa oo waxaasaa keeni kara maanta idinma odhan karo eese waxaa keeni qodobo badan ayaa kiciya sida gabadhii oo kale inay hormoneskii jirkeedu inay isbedbedelaan mararka qaar way keeni karayaan. Haddaba calaamadahan maxaa ka mid ah? Calaamadaha waxaa ka mid ah mood swings wax la yidhaha. Mood swings waxa weeye waa gabadhii inay niyaddii ka xumaato oo tusaale haddii gabadhaasi qof ay isjeclaayaan oo kale ay la hadli jirtay ama haddii ninkeeda la hadli jirtay inay niyad jab ka qaado waxyaalihii markaa u samayn jirtay oo kale markaa ay u samayn kari weydo. Marka waxyaalaha noocaas oo kalea inay yimaadaan baa dhici kartaa. Calaamada kale imaan karta waxaa ka mid ah tender breast inay tusaale naaskii oo kale damqasho ka dareento labadii naasoodba damqasho ka dareento calaamadaas way imaan karaan. Waxaa kaloo imaan karta calaamad lagu magacaabo food craving oo ah inay gabadhii rabitaan cunto oo mar walba cunto rabto oo kale inay markaa timaado. Waxaa kaloo imaan karta fatigo oo daal fara badan baa gabadhii ay dareemaysaa oo waxyaalo fara badan oo ay gabadhii qaban lahayd ma qaban karto gurigii shaqadiisii ku adkaanaysaa waxyaalo fara badan baa markaa gabadhii oo kale ku adkaanaya. Waxaa kaloo imaan karta irritability xanaaqsanaan badan oo qof gabadhii xanaaq badan baa laga soo taagayaa oo aad erey markaad tiraahdo oo kale maba xamidayso oo kugu caroonaysa oo kugu xanaaqaysaa. Waxaa kaloo imaan karta depression isku buuq walwal iyo walbahaar iyo isku buuq ay qaado kala imaan karta. Waxaa kaloo imaan karta trouble sleeping hurdo aad u badan oo gabadhii oo kale hurdo aad u badan bay gelaysaa oo hadday seexatay haddii hurdo kasoo kacday haddana mar labaad hurdo u baahnanaysaa. Marka trouble sleeping fara badan ayaad ka arkaysaa. Waxaa kaloo aad arkaysaa mararka qaar madax xanuun fara badan oo gabadhii ku imaanaya. Waxaad kaloo arkaysaa insomnia oo ah hurdo la'aan mararka qaar hurdadiiba way ka guuraysaaba xaaladaha qaar. Waxaa calaamada ugu caansan ee maanta waxaa ka mid ah bloating naqas inay calooshii ka dareento. Calaamadahan haddaba goormay bilowmaan? Sidaan idiin soo sheegayba 2 isbuuc ka hor intaanay gabadhu caadada helin ayaa calaamadahan isku arki kartaa. Waxaa kaloo isku arki kartaa 2 cisho ka hor intaanay caadada helin bay isku arki kartaa. Pay attention your partnerkaaga qofkaad markaa la sheekaysanayso ama qofka lamaantaada ah ee gabadhaada ah ka taxadar inaad markaad calaamadaha ku aragto inaad la ku xumaato. Markaa wax dhici karaysaa inay family problems dhibaatooyin qoys inay meesha yimaadaan oo tusaalahan oo kale adoo gabadhaadii markaa doonaya inaad wax fiican aad u samayso ay markaa kugu xanaaq badan yeelato waxaad oranaysaa markaa gabadhii way isbedeshay sidii hore maaha waa adinkaa markaa isfurnayn iyo markaa ku degdegay. Haddaba calaamadahan maxaan kaga hortegi karnaa? Waxa keliya taan kaga hortegi karnaa dumarku ay kaga hortegi karaan waxa weeye life stylekooda ma inay bedelaan ayay kaga hortegi karaan. Waxyaalaha kale ay samayn karto gabadhi maxaa ka mid ah exercise baa ka mid ah jimicsi 3 jeer ama 5 jeer wiigii isbuuc kastaba inay samayso markaa jimicsi samayso. Cunto balance diet inay markaa cunto gabadhii cunto balance diet qaadato. Waxyaalaha kale aad samayn karto waxaa ka mid ah inaad milixdii iska joojiso. Cuntooyinka inta badan milixda ku badan yihiin waxay keenaan naqas bay caloosha geliyaan markaa iska jooji. Waxaad cuntaa cuntooyinka calciumka ku badan tahay sida caanaha oo kale caanaha cab caanaha markaa isticmaal. Waxaa kaloo isticmaashaa cuntooyinka carbohydrate ku badan tahay sida fruitiska midhaha vegetablska waxyaalahaas markaa la halmaalan iyagana isticmaalo xun. Hurdo fiicanna seexo hurdo wanaagsan seexo waxaa markaa kugula talinaya 7 saacadood ama ilaa 8 saacadood hurdo fiican inaad markaa aad seexato. Haddaba ka warrano haddaba daaweynta oo waxaan idiin soo sheegay in calaamaduhu mararka qaar noqon karaan kuwo safiir ah oo aad u daran oo gabadhii xamili kari weydey. Maxaynu kaga daaweynanaa?
waxaynu kaga daaweynanaa kow inay isticmaasho dhakhaatiirtu inta badan waxay qoraan oo de annagu maynu qornaaba dawooyinka sida inta badan dhowr dawo iswataan gabadhii aanu siinaa dawooyinka iswato waxaa ka mid a dawooyinka depressionka antidepressant inaan siino sida dawada loo yaqaano broxetine oo ah inay muudkii hagaajiso qofka muudkiisa u saxdo oo muudkii u hagaajiso sidana waxaa ka mid a non steroidal anti-inflammatory drugska NSAIDska dawooyinka la idhaahdo sida gabadhii oo kale inaan ibuprofen siino ibuprofenku aad buu ugu wanaagsantahay inaan ibuprofenka oo kale siino aad baad mahadsantihin sida quruxda badan aad muuqaalka ula socoteen haddii markaa aad muuqaalkan si qurux badan aad uga faa'iidaysatay uga faa'iido una sheergaree dadyagu markaa aad ugu baahan sida markaa lamaanihiina iyo markaa dadyago kale markaad jeceshiin aad markaa la hadashaan si iyaguna xanuunkan wax badan uga sii ogaadaan